هذا بيمكا تسافيسي وحا شيء ذهب كوا امسك جرام هذا waxa weeye hal garan baad oran kartaa ويت يار صبا intan waa intan yar dhagaxii inuu dahab leeyahay waxa lagu ogaanayaa hadii bariiq laga helo bariiqii dhinacaas ku haraya وكان ذهبكي والله صفي waa warshada ugu baaxad weyn oo dalka inta af Soomaaliya ku hadasha laga dhisay nooc kasta oo sameeyaba iyadoo waxay sameyn doontaa insha Allah taala dahab 12 ceelkan ka mid yahay ayaan hadda qoranay oo warshada loogu talagalay shirkadu waxay ku celisay deegaanka wadadana 56 kiiloomitir halkan waxa seexda shaqaalaha sidoo kale ana xalay seexdaan tuso taanada aad u qurux badan leh shaqaalahaniyo shirkadan si wanaagsan u ilaalis halkan waa meesha ay ku ciyaaraan ama ku dheelaan shaqaalaha marka soo laabtaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دو channel geedisaan waxaan joogaa warshada ugu weyn ee dahabka laga soo saaro dalka iyo geeska Afrika Maxmud kusoo dhawo channel geedisaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أدبنا دوهاي محمود أنا محمود بالي راسك ما قاعد نهم مرانية قبت إنه تشوفنا وحليها بامبر واقع ورشة ما قاعدة وحكون فرد إذا دول بحدث هيكون يلح بقول أو متر سكويره نسبي وصعدة وأقدر أكتن سوق صعدة وحنا كل جوينا هنا لما طبعا نوفمبر ديسمبر إن شاء الله تعالى وورشة ugu baaxad weyn oo dalka inta af Soomaaliya ku hadasha laga dhisay nooc kasta oo sameeyaba iyadoo waxay sameyn doontaa insha Allah taala dahab waana mid wadanka guud ahaan iyo gaar ahaan manfac weyn soo kordhinaysa shaqaale abuur cashuuro income private ah wax walba yeelan doonta tuulada hadda nagu dhow oo warshada la yiraahdo marketka ay ku haystaan dadka ka shaqeeya hore uma haysan jirin waxa kale oo leedahay facilities kale oo dadka u qabatay dhakhtarreed dhisay ama gacanta ku haysaa station police bay dhisay waxa ma jirin wada dhowr iyo 50 kiiloomitir already waa dhamaanaysa oo iyana mid ka balaaran ama nooceeda aan wali laga dhisin Somaliland baaxadeeda leh arshida xaga ku taala arshida waxa ku taala gobolka Sanaag buuraha dhinaca xeebta u jeeday ka xigta xeebta waxa noo jirtaa ilaa 32 kiiloomitir waa dhulka dadku u yaqaan gubanka ama madarka u yaqaan dhexdooda inta aan ka aqaan حاجة بوران محلها buurahan waa buurihii Sanaag ama حاجة قوبي ما لكن ما حاجة تقول ما ودول في عنا قوم حاجة كليل أفرت لبد إلى أفرت صدق دور هذه واحد أفرت تقريبا أفرت ما أنت بقولي قال لنا هو في عنها لكن قال لك الدم وذاك الدنطة مرة دمي دون أنا كبر واقع بسمهن أمس السنة هذا صعدي كان هذا استحن وحن بلونا جون بان بلونا جون كان جون تخرع نوفمبر نود منسى لمن 24 hours ولا شقدي هذا هو حوجا ولا نصرية سلايا بريك تايم ماي وهودا أو حن أوديد أيام وحن بلونا أفرت قلب نمو إلى أفرت هذا نمو شقينا واو 6 ساعات عادي 4 ساعات أمرتين من شغال وقاته وحنوكر فينا ونحن شغالنا أنا وحويه عمرنا لا شقين ويديو هذا كله haddii la gaaro bisha sagaalaad normal hours kala shaqeynaya maalin badka ah oo qaboobe iyadoo dadka dhib kuma aha laakiin dadka aad dib u haysa maanta hadii la shaqeeyo sababta dad u arkwada meesha wacanka warshadan hadda mid kala jirta kana waxa weeyaan hada waa weynaanaysa soma warshada kalena ma ka yartay test experimental beta sax wax dhulka lagu eegay in dahab ku jiro dahab waxba soo saarto wax black sand dahab soo saarto laabka in la geeyo laagago لكن تندهب كرسمي هنا سو صارته ولي عيده كسو صارته ايا laga raja qabayad aniga waa laga helay gobolka dahab waa yalla waa ku badan yahay ma sha Allah okay waa soo gurduna insha Allah welcome 12 ceelkan ka mid yahay ayaan hadda qoranay oo warshada loogu talagalay kan kii ugu horeeyay waa kii ugu horeeyay waa la isticmaalaa waa kan dhismaha lagu wada hadda okay 12 kala jira waxa kale oo jira degmada halka naga xigta tuulada arshida waa noo qoday laba okay gorgor baa jirta oo soo qodnay iyadoo already shaqaysa وقد قرر لك سوق دي باكرة دب waxa ugu celisay deegaanka طبعا ما دام la degan yahay wixii la kari kara ama wixii daruuriyaad oo dhan weyn ku celino way dhulkoodii baa la degan yahay dhulkoodii baa khayraad laga rabaa tedisaf okay sidoo shaqeeyo ma solar ku shaqeeyo solar buu kana ku shaqeeyaa oo waa kan lagu dhisaayo meesha laakiin light baa ku wada shaqeyn doona kulligood 10 kale isagoo la isku xidhaya warshada yar ma kii dahabka ba ma kuwii dahabka ma hay waa warshada ku shaqeysa wixii bir naga xumaada dibad looma doonto halka lagu sameeyo waa torna lagu yiraahdo afka okay bertaniga anaga qorana boqosha anaga qorana koniga qortay iyaga qoraha farsamo yaqaanka dhisaayo warshada ayaa qoray bir iska taagan bay marka hore halkaas oo kala ah haddana waa kuwa boolka ka dhigay
wax walba uu sameeyay waa kuwan waxay qoran sama wixii laga qoray uu yahay waa kuwan iyo tusarka okay ferdanja wax walba warshad way leedahay qalab walba qalab kasta ay u baahan tahay dhisma ahaan waa dhammaystiran tahay waa garta si fiican u dhammaystiran tahay waa waxaan oo dhan boolasho u baahnaayeen wala shii wixii u baahnaayeen kuwa laftooda kuma filaan doonaan hay halkana lagu qori doonaa iyagana waa garta waxaa loo keenay kuwan kuma hadday jabaan marka la xidho dib looma dalbi doono meel heblaha laga sugaya la odhan maayo warshadii baa lagu haystaan kuwan waa wixii dhismaa lagu qabanaya scaffolding baabiskii kuwan waa gaaska bishii waxaanu isticmaalnaa gaaskan ilaa 300 mitir wadada ay kaliya taa wadadan cusub hadda dhis lahayn dib weyn nagu ahayd ma socoteen ma socotay way tabcasa u dhaafaysan badigaadi waxaan hal qalabka halka yalbaan sooma mareen meel kale gaariyaasha exactly kan weyn sidoo soo dhaxmaray wuxuu u soo dhaxmaray kanay wuxuu long time ago 14 cusub soo jiray from Berbera to here wow hadda waxa soo martay xeebta xeebtan soo maray okay way tabca qofkan ogeyn insha Allah maqaal dhawaana soo deyn doona kan ku xiga طبعا waa god ingiriis ka dhisay ma garatay waa tanalka kaliya wadanka uu leeyahay ha tanalka kaliya ama nafaqa deetana gaariyaasha waa weyn ma mari karayaan this is a big problem ma garatay dawladna dib u madhisin marka idinka hadda sameeysta wado cusub ma garatay ma sha Allah waa bakhaarkii aanu ku kaydinay sawirka Berbera gawarda ka soo qaadaa halkan u dhignaa dabadna waa taa dhismo halka ku soo wada aragtaan intaas oo biri ka taagan tahay oo dhan mid waliba waxay qodan tahay hal dabaq bay hoos qodan tahay okay qaar baa 12 mitir ah qaar baa 10 mitir ah wixiina la soo wada buuxiyay birayo lagu soo buuxiyay samit waxaan loogu talagalayaa inaanay birta la saaraa hadhow dhaqaaqin oo dhulku ruxmin saas loo adkeynaya xagga wada aragtaan inta dhaadheer la ligi birtan imsa la qoday kan 12 mitir taas qodan tahay 12 hoos ma la tii dheereen mise taas ma halka way sagtaa daba ka ruufka la saaray jaranjaradu waa dhisan tahay oo u dhamaatay baalka naga dambeeya ahraam buu eegyahay maxaa weeyaa ahraamta cirgaaba waxaan oran karaa ahraamta cirgaaba oo waliba cusub madarana wuxuu ka samaysan yahay bir meeshana lagu sameeyay dibadda lagama keenin farsamo yaqaanada halka joogan halka lagu sameeyay waxaana loogu talagalay warshada waa meesha warshada ciida loogu shubaayo oo la rabo in dahab laga baaro laga safayo mustaqbalka insha Allah taala iyadoo bir ah oo balbalaaran oo halkaas oo taal kala taasoo kale ahayd wasa loo googooyaha iyada laga sameeyay farsamo yaqaanadu halka joogan waxa halka ku aragtaan oo farsamaysan oo idil halka lagu sameeyay waxa la keenay waa material koon alaabtan baa la keenay wax samaysan waxa yimi gaadiidka halka yaal waxa kale oo idil halka lagu sameeyay farsamo yaqaankina halka jooga iyo caawiyaashii oo Soomaaliyeed dib isugu jira waxaan hadda qaybta biyaha tagana caalasha waa soo aragtay qayb kamid ahayd biyaha nigeeniya caalasha faraha badan oo 12 ka ahay bal meesha biyaha ku shubayna soo aragno kale waa barkadii caalasha aad soo aragtay ee 12 ka ahaa biyahooda la isugu keenayay ilaa 320 kun oo kubik mitir oo biyaha bay qaada halkii mar biyahaas waana ku soconayaan oo warshada tagayaan recycle way sameeyaan oo ku soo noqonayaan marka waa barkadii biyaha lagu kaydinaya tan marka soo maraan warshada soo dhamaadaan iyada dib u soo noqonayaan habka loo sameeyay ayaankaas waa 120 mitir iyo 60 mitir dhana waliba 60 mitir oo labada geesa iyo 120 mitir hareeraha hadda waxaan tagi doonaa meeshii shabaarka dahabka waxaan soo eegi doonaa sida loo sheebaado dhagxaantii marka la soo qaado waa dhagax caadiga ah oo in ariga ku tuuro waxa laga yaabaa marka la shiido oo la eego inaan waxba laga helin waxa la macnataa area-daas waxa malaha haddii la shiido oo sumad dahab laga helo dib baa loogu noqdaa 1 2 3 ilaa la yiraahdo halka waxba yaal marka waa exploring waa la baaraya dhulka ee ma in dahab la soo gurayo dadka qaar baa oo dahabkii baa gurayaan ma dahab waa baaritaan ma naftaranada oo kala dambeeya marka waa caynka halkuna okay hadda waan tagana dhagaxana shiidi doona ka bacdina waxaan gali doonaa mukhtabarkii mukhtabarkii wuxuu dhan isla mukhtabarka from here to there waa wada mukhtabarkii kale waa kan ugu qaalisan ama ugu weyn geeska Afrika ama isagoo kale kama wadisnaba as far as I know kama wadisnaba toos mukhtabar af Ingiriisi maxaa lagu laboratory okay waa magaciisa waxa la yiraahdaa MRC Mineral Research Center waxaan ku jirnaa ha okay waa ka ugu weyn
iiska afrika kuma yaalba kuma yaal kuma yaal intooda badan la soo maray hadda waxa la sameeyaa dhagaxa sambalka ee buro laga keenay mishiinka yar baa lagu shiidayaa marka la shiido waxaa la geynayaa qaybta kale waa la shaandhaynayaa dabeedna waxaa la geynayaa laabka waa la kululeynayaa waxaa la eegayaa darajada uu leeyahay haddii dahab ku jiro waa ka isagoo shiidan waad aragtaa dhagaxii weynaa adkaa waa ka saa ka dhigay hadda waa tallaabadii labaad waa tallaabadii labaad ee shiiditaanka dhagaxa sambalka ah dhagaxi waa ka oo tallaabadii koobaad soo maray mishiinkanina waa kii labaad uu sii shiidayey saqalayaa waa dubii garaacaya dhagax haddii wax dahabi ku jiraan ciiddaa dhagaxa laga shiiday geeskaasu ku hadhaya wax ciiddahayna halka soo dhacaya marka dhagaxii inuu dahab leeyahay waxaa lagu ogaanayaa haddii bariiq laga helo bariiqii dhinacaasu ku hadhaya waxa dahab halku soo dhacaya ma jiro oo biyaha soo raacaya isaga iska riixaya waad aragtaan say ugu soconayaan hadda soo ma aragta say ugu soconayaan ciiddii o dhan wata halka maraysa xabad ciiddi geeska la tegi mayso haddii wax dahabi ku jiraan ayaa xaggaa ku hadhayaan waa inuu halkaa dahabku soo maraa dhagaxii la shiiday wuxuu ku soo hadhayaa geeskan ciidduna wata halkaa maraysa ilaahay dhac wax calaamad dahaba oo dhagaxaas ilaa haba yaraatee ma jirto dhagxaantuna dee ma wada lahaa mana aha dahab fara badanoo sida ciiddaa u soconaya waa sign midh iyo laba biriiq ah ayaa soo baxa markaasaa lagu noqonayaa meesha loonaya bal dhagxaankan laga soo qaada markaasa la baarayaa ilaa abtirsidiisa la gaadho kan keliya waxa weeyaan baaritaanka marka meel dheer la qodiyo asaasi ah laakiin kuwa yar waxa weeyaan waa finding bal gacanta lagu sameeyaa isagana galabtan tusi doona dhagaxaan soo shiidnay oo kale markii la shiiday mid la mid ah kaasoo kale walaalkiisa ahaa oo la soo shaandhayey oo biyo la soo dhex mariyey oo vibrating table-ku soo maray miiska gariirayay dhowr dhagax ama 10 dhagax ama ka badan baa intaas ka soo baxday oo ah sumad dahab dadka tuso intaa meeqa weeyaan imsa lagu iibin kara gram we can say 1 gram ama kaba yar laano yaraanta eegana miisaan buu leeyahay weightkiisa iyo quantity-giisu isma laha oo dahabku isagoo quantity-giisu yar yahay ayaa miisaankiisu culus yahay marka waxaa laga yaabaa dhagxaan fara badan intaa in laga helayba ama mid keliya laga helo laakiin waa sumadii dahabka aagaas kabacdi marka hadda dahabkan laga helay meesha laga helay ayaa la tagayaa sahan fiican baa laga qaaday weli wax qodaala oo loo diyaar garoobay oo lagu qodayaa oo dhagaxay ma jiro haba yaraatee si fiican baa loo sahminayaa waxaa laga yaabaa inuu dahabkaasi dusha yaalla kan hoosta nool mar haddaan wax soconaya 50 ama 40 sano ama 30 sano ama 20 sano ahayn cidina lacag gelin mayso hadduu 2 mitir soconayo maaha wax faa'iido ah benefit ma laha waa in la ogaadaa intuu hoos jiro waa marka hore la ogaada sahanka loo diray sahanka waa la soo sahminay hadda ciyaarta ma hadda waa soo sahminay sahanku year buu soconaya one day or 1 year ma ku dhamaan karo total kuma dhamaan karo hadda kan waa la soo sahminay dushiis baa la sahminay hoosta dhiman wala qodiya wala baariya drill baa la gelinayaa buurta hoosteeda la gelinayaa meel u jirta 100 mitir ka hooseysa ama 200 mitir fa drill laga gelinayaa haddii sumadii dusha tiir hoosta laga helo is a golden mountain millionaire إن شاء الله. واكن. قد مصر اللي قبله. waxay ku tiri maanta inta wada buurta laga ma helo 3% حتى hadii la baaraba 3% hadii wax badan 3% waa kan dahabkii oo la safray halkan waxaa seexda shaqaalaha sidoo kale ana xalay seexdaan oo tuso taanada aad u qurux badan leh shaqaalahan iyo shaqadan si wanaagsan u ilaalisay markaa dhowr sariirood bay yaala halkan cidna ma seexan anigana inta seexday ee saaxiibka cirkaabad ka soo raacnay waa ka sariirti waxa haysanaa kow mukayfkan xogaa u qaboojinaya andaro ma garatay iyo kan kale marwaxada xagan aad u kulushahay ma garatay afarta wax ka badan weeyaan soo inaba caadi ma laba qof kaliya ku seexnay shirkadan wuxuu u sameeyay shaqaaleeda meel aad u wanaagsan ee seexdaan halkan waa meesha ay ku ciyaaraan ama ku dheelaan shaqaalaha marka soo laabtaan goonaha yaala volleyballka ama kubadda gacanta ma garatay ana si wanaagsan ma aqaani kaliya weeyaan soo waxaan tusi doonaa ninka laacib horoha ma garatay عبد الرشيد حاجة ما الذهب بلغة صار واحد
ها waxa weeyaan waa tijaabadii hore oo marka hore dahabku laba u kala qaybsamaa mid waxa weeyaan place deposit baa la yiraahdaa oo malaayiin sano ka hor waa kii buuraha inta roob ku daay soo qaaday dooxa dhigay ama dixid hadba se loo yaqaan midna waa primary ore deposit oo waxa weeyaan ka dhagax ku jira ama mother ore deposit baa la yiraahdaa waa ka dhagax ku jiro kadib markaa kan waa secondary ka ciida marka kan aaladda la isticmaalana waa banning kan waa banning baa la yiraahdaa afka ingiriisiga banning bay yiraahdaan anagu waxaan yiraahdaa waa xeero marka waa la goolabaya aasa lagu baaro la goolabaya shaking baa lagu sameeynaya dahabku marka density-giisa badan cufnaantiisa culayskiisa badan marka by gravity buu ku haraya dahabku culaysaan buu ku haraya marka dahabku waxa ugu culus hal reer baa ka culus waxa la yiraahdaa platinum group ma garatay marka platinum kale ku culus yahay waa 22 isaguna 9 weey isagu marka isaga ugu culus density ahaan buu ku haraya wixii kale ahaa quartz-kii iron-tii waxaasna way baxaya oo biyaha raacayaan iyagu marka isaga ku soo haraya finally imsa daqiiq ka qaataa walaaqada 5 daqiiqo 5 minut waa hadda maxaa safaynaysaa dhagax waaweyn aad tuuraysaa dhagaxa waaweyn dusha naga tuuraya dhagaxa dusha marka naga tuuro ciida dahabku isagu waxa weeye waa culus yahay culus bilay salku tagaya salku gunta salka guntu tagaya dhagaxa marka naga safayo salka ciidana wana tagayaya taasoo noo wareejiyaya hadda biyo marka aad safaysay waxa shay dahabku waa imsa gram hadda waxa weeye 1 gram baad oran kartaa way tayar saba intan yar waxa weeye marka waxa ka soo bixi kara 3 gram 4 gram 5 gram hadeer maanta ciidan waxa weeye waa sahan andaha soo saamisay meesha soo saaminay waxa weeye waxaan ka soo qaadnay sahan baan ka soo qaadnay waxa weeye bond 3 weey intan weey dadka tusana bond 3ga inter weey waa intay ciida dahabkana waad garadaysaa waxa weeye waa ka gaar ciida kale عصام هذا كله تقنا عصام بيلي وي وعصام هو تكلنا wax iska cadaan weey waxaan ku wad garada markaa shirkadda maxay ku celisay deegaanka shirkaddu waxay ku celisay waxyaalo far badan bay ku celisay waxana wuu soo socdaan waxa kamid ah waxay ku celisay halkan laga dambeeyay waxaan ka bilownay dhakhtarkii magaalada Cushiida oo ka kooban waa rag ah iyo mid dumarka iyo mid caruurta ah laba qolo masaajid ah oo mid dumarku leeyihiin midna rag leeyahay pediatrician room kina waa ku jira kii caruurta radiology halkii kashaafada ama MRI la dhigi lahaa sorry MRI ga waxa kale oo jira pharmacy outpatient intaana way leedahay kaas waa mid wada socota darka doontaan ama soo aragteen iyadana gadaal baynu ka eegi doonaa halkan garabkana waxa station police-ki idinka dhisay 85% ka mariga dhisay 85% inta kale dawladda dhisay okay waxa ku soo laabano dhakhtarka dadka soo booqani doona ma free ba ka dhigi doonta dadka soo booqan doona dhakhtarka iman doona waa free dawada waxa bixinaysa shirkadda dhakhtarada waxa bixinaysa shirkadda wax walba shirkadda bixinaysa right now waxaan ku haynaa dispensary camp-ka dhexdiisa ah $10,000 dawa baa bilol bala kaana oo India laga keenaa oo original medicine over 10,000 by last 4 years ki meesha la joogay dawo laga siiyay horena aan uga heli jirin inta deegaanka Cushiida ma inta deegaanka oo dhan waa deegaanka oo dhan weey deegaanka oo dhan weey ilaa la surado about 32 kilometers jirta xeebta weey xagga ilaa dhacirba ka yimaadaan marka deegaanka oo dhan baa ka faa'iideysta dawadana iyaga bixinaya dhakhtar baxsan waa la keenayaa wali specialist sida ballantu tahay oo hadda qorshe noogu jira waxa imanaya gynecology neurology orthopedic and cardiac afartaas waa imanaya iyo hal general doctor ilaa shanta dhakhtar inay yimaadaan si ballantay qaaday shirkadu dhismaha goorma dhiman doonta insha Allah dhismahan wuxuu ku dhamaanayaa ilaahay idinkii within 2 months shirkadda waxay ku celisay deegaanka wadadana 56 kilomitir waagi hore waxa la mar jiray wadada tabca oo aad u adkeed 90 iyo door ah gaariyaasha yararka san kan oo kale wuxuu socon jiray taqriiban 5 saacadood ilaa 6 saacadood gaariyaasha waaweyn wuxuu socon jiray 10 ilaa 12 saacadood maanta waxaan u socon karnaa cirgaabo ilaa tuulada waxaan u socon doonaa taqriiban saacad 45 daqiiqo ilaa saacad iyo bar
gaariyaasha waaweyn oo gubadnaa 3 saacadood buu soconayaan caqabadaha soo maran in la dhiso meeshan waxa weeyaan buuraa laga dhex baxay soo arkaysan waa kan buurta cagafyada naga dambeeya waxa weyn kuwa wadada lagu dhisay hadda taqriiban waxay dhameen boqolkiiba 70 dhiman insha Allah taala 30 kaara waxa isleeyahay ilaa 2 bilood ay dhameen doonaan marka waxaan jeclahay inaan dubno dalka horumarkiisa kana oo mid kamid ah sheekooyinka ee dalka horumarkiisa marka anaga ilmaamina subscribe la comment wana muuqaalka soo socda iyo gobolka Sanaag application-ka Wafi waa weynka safarkayga haddii aan joogo Europe Asia Africa iyo America waxaan ka dirsadaa lacagaha dalkayga ayaan ku soo wacaa waxaana ka maamushaa bangigayga kala soo deg adeegan Play Store-ka ama Apple Store-ka